السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الميول بأدوني دافيدا كجوكتان مجيء ومحمد سعد مسترنين يوتيوب كايجا داونس نوا موها سعد مسترنين فضلا سبسكرايب للجنال كايجا هدي أد كمنت أهينا كمن نقف فاميلي مسترنين ما هتسند إن ما أنت موقال كأنه هايو ما أهن موقال رياكشن نربحين هايو ما أهن موقال فيديو كوميدي ما أهن وحيابا لأن الإسويدرسنا لكن موقال كأنه وحو كترجمة وكهلا يا جبرير أو مسكين oo aan gareystay inaan idin soo bandhigo si aad u faafisaan oo aad meel walba dadka aad ugu geysaan gabadhani waa gabar yar oo aan da'deeda ku qiyaasay 7 jir 9 jir ilaa 10 jir gabadhani si daily ah oo maalinle ah waxay u qaadaa dhabarkeeda ugu qaadaa caag tobanla oo biyo ah oo ay baaxad ka fog mise masaafo ka fog gurigooda ay ka doontaa waxaa mid la yaab kale oo ah ilaa hadda maskaxdeeda gali la waxay tahay gabadhaas maalin walba waxay hormartaa baarlamaanka qaranka Soomaaliya meesha dawladda qaranka Soomaaliya ay dadka uga arrimiso shacabka dadka mas'uulka ka ah meesha ay ku nool yihiin ay hantida qaranka meesha taala ay maalin walba hormartaa waxay la noosha gabadhaas oo cunto reeb ah meesha cuntada markay cunaan kadib ay ka soo qaadataa saraakiisha dawladda mise ciidamada meesha ay ku nool yihiin gabadhaasi aabaheed waa u dhintay waa cunug yar oo agoon ah runtii muuqaalkaas marka aragto qofkii damiir leh mise qofkii damqashiir ay ku dambayso runtii uu ka gilgilanaya oo ka damqanaya sababta hadda ay kula wadaagaan waxay tahay damqasho aniga aan ka damqaday fadlan waxaan ka codsanayaa muuqaalka gabadhaas waan soo gelinaya in aad u share gareysaan oo aad meel walba geedisaan muuqaalkaas si uu qof walba u arko gabadhaasna masaakiinta uu caawiyo lambarkeeda halkan ayaan soo dhigi doonaa oo ay ayada leedahay si aan lambarka aan ka soo guuriyo TV-ga Shabeelle ayaa soo dhigay page-kiisa oo aan ka soo qaaday lambarka iyo muuqaalkaba gabadhaas maskiinta ah caawi walaal $1 hadii aad ku caawisid waxbay u taraysaa $2 $100 $50 meel walba adduunida daafeeda ka joogtid hadii aad wadanka joogtid EV Plus ahaan ku caawi hadii aadan wadanka joogina fadlan xawaalada ayaa jira taaj ayaa jirta fadlan ku caawi gabadhaas yar maskiinta ah aan wada caawino runtii waxaan aaminsanahay intan dadka noocaas kale ay naga tabartiyar mis aan ka taagtaroonahay inta aan ku dul istaagayno oo aan ku daawanayna xanuunka in aanan weligeena ilaahay nabad aan heleynin fadlan intaanan hadalku ugu daarin muuqaalka ila soo daawo waan ku maasan tahay daawashada muuqaalkan fadlan share garay mahadsanid dhaaminta jirigaan biyo ah Ifraax Ilyas waa hawsheedan maalinlaha ah ee ay u qaabilsan tahay qoyskeeda saboolka ah gabadhan yar ee agoonta ah shaqadan culus waxa uu si dheer duruufo kale oo ay wajahayaan iyada iyo qoyskeeda sida ay Shabeelle TV u sheegtay ayeedeed Aamino Maxamed Qaasim ayeedeed ah gabadheed inkastoo jirigaaman ay qaadi karin dan iyo duruuf ayada u geynayso mise dadaal adduunyo intay ka bado ayadoo meel ay gaarin ay isgaarsiis waa faanta malena jirigaamada hadday geysan wax ka soo qaaday malaha soo jida dal soo jiidayso ayada soo saarsanayso wax u saaranayna ma arkayso ceelkaas ayada kaligeeda soo wareegsanayso darbi saaranayso marka anigana qof micnaha xanuunsan oo micnaha ayada qof jabsan waa wax biyo arooray ma laha isleedahay cunugtay maanta gabadheedan iyo ilmaheega meesha wax joogaan waa mahad maxaate Axmed iyo Ifraax Ilyas maanta wax daryeel maanta ay iga haystaan ilaaha awoorto ma jirto waxayna ku nool yihiin xeeladaas wax laga kariyo oo ciidankaas ay cunaan waxay soo reebaan ay bacda ay ku soo siiyaan Ifraax Ilyas oo aad daawadayaal ku aragteen baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyada oo cagacad oo jirgaankan biyaha wada waxaan soo booqanay gurigeeda waxaan la kulannay qoyskeeda hadda aniga Ifraax waxaan u soconnaa ceelka ay ka soo aroorto oo laamiga ku yaala agagaarka sayidka halka ay degan yihiin waa kaamkan oo ah dhinaca dambe xarunta baarlamaanka marka hadda jirgaanka ay wada waa Faaruq meeshan tagaynaa biyahan soo aroorina laakiin markan aniga soo qaadaya Ifraax Ilyas biyo aroorku waa shaqo sidoo kale ay la wadaagaan caruur aad u daayar oo ku nool kaamkan talaabooyinka u jira xarunta baarlamaanka Ifraax ali dhaawana ayade jirna biyo soo qaadaa haye Ifraaxay ka waran wax ma barataa maya haye maxaa dhahay hooyadii wax barasho ma geenin jirgaanka biyaha marka awoodid ka waran culayska see ma dareentaa ha haye
marka maalin kasta miyaa biyaha soo aroortaa haa haye maxaa ka codsanaysaa ummadda muslimiinta Soomaalida agoonaa tahay way ku arkeen adoo cagacad in biyo aad aroortid qoyskiina waxa waa xaaladooda waa arkay ka waran maxaa ka codsanaysaa dadkaas inay waxbarasho geeyaan oo guri fiican na dejiyaan mustaqbalka maxaa jeceshaa inaad noqotid marka aad wax baratid macallin dadka inaad wax baratid aad jeceshaa miyaa halkan aan taagannahay aniga iyo Ifraax waa goobta ay ka aroorto maalin kasta biyahan iyadoo cagacad bay martaa xarunta baarlamaanka hortiisa meeshan waxa ay ku taallaa ilbaabka laga galo baarlamaanka Ifraax oo ah gabar yar oo agoon ah oo qoys danyar ka soo jeeda ayaana maalin kasta hormartaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kursiga waxa ay ku fadhiyaan matalaadda shacabka laakiin marka hadda aad eegtid danahooda gaarka ah iyo mooshinka ay ka keenayaan madaxda sare ayaa hawl ugu filan Ifraax iyo dadka la midka inay ka hadlaan uma baahna Maxamuud Soofay Shabeelle TV Muqdisho